السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت شكلها بلعت يا سأنتوا جدًا نينكي ترامب هذا والله فوحده واقعي إن أو ما أنت قبل ما أنت إن الدولة الأمريكية وحي معاونة بهنجرين يجوجينيان marka waa la joojinayaa wixii macaawina ee dawladda Mareykanka bixinaysay marka ilaa 3 bilood macaawinada ay bixin jireen buu maqnaanaya oo la joojinayaa marka 3 bilood intaas macaawinada la joojiyay waxa way dawladda u soo fikraysaa waxay sameynayso waxay arintaas ka sameyn lahayd marka waxa la rabaa dawladda hore oo laga badiyay doorasho laga badiyay siyaasadooda in khadka laga saaro baa la rabaa oo marka ayaga waxoodii ay keensadaan marka 3 bilood markay dhamaato waxay sheegi doonaan qolada ay macaawinada ay si rasmi ugu joojin doonaan iyo qolada kale oo macaawinada siin doono ay ku dhawaaqi doonaan marka waa kan artikelkan baa xaqiijinaya arintaas soo jeedaan marka arintan waxa weeye waa taas soo jeedaan ilaa 9 maalmood shilin ma bixinayna been dawladda Mareykanka soo jeedaan ya marka Soomaaliya waxaan leenahay arintan dad baa ka qaraamaya ya Xasan Sheekh waa kana bariyada ku barteen asaga waxaan dawladda ku sheegaa soo jeedaan away joojiya la adeerayaal socda ya waxaan ma hayna xaga iska bax ya marka waa kaasa ya marka arintan waxa weeye macaawinada ay joojinayaan horta dawladda Mareykanka waa wax fiican way Soomaaliya baa fiicanta ya marka normal ahaan hada u fiirsano dawladda Mareykanka waxay bixiyaan dawalba wax fiican ma hayn ya nambarada xaqiijinaya Biden ku arkayna oo reportkan baa xaqiijinaya soo jeedaan marka reportkan ee dawladda farmaajo ay qoreen oo la dhaho aid inflows in Somalia baa xaqiijinaya nambaradaas darabtaan reportkan linkigiisa hoos ku jira marka soo ku jeedaan waxa weeye dawladda Mareykanka waxa weeye badanaa waxay bixiyaan waa badar way soo jeedaan marka 2020 koodii ilaa 2019 ilaa 2020 koodii billion iyo bar oo badar gaaray 1 billion iyo bar bixin soo jeedaan marka wadamada kale hadii loo barbar dhigo waxa weeye kala bar ay bixiyaan waxay wadamada kale ee Kenya ya laakiin run hadii la sheegayo ya run hadii la sheegayo Soomaaliya ma ogtahay oo billion 2 billion iyo bar lagu bixiyay ya waa kana nambarada xaqiijinay soo jeedaan dawladdaas oo dhahay macaawino oo badar keena Soomaaliya ya waa kaasa 2 billion iyo bar oo badar baa Soomaaliya sayna ya marka shashkan inta ugu jidaan waxay dhahayaan waa billion iyo bar kaliya sheegay waa taasa ya marka waa kaasa waxa weeye Soomaaliya dama qashid mahmaadi in baan gob ma Soomaaliya noqon marka waa kaasa macaawina qaatid degomtid marka wadankaas waxa weeye macaawinada ay dhahan Mareykanka ka bixina waxa weeye wax ay dadka helaan ma waa wax oo sheedaamay iyo dadka la qaateen way marka waxaas hadii ay noo joojiyaan dadkii qaadan jiray bay go'aanta ee Soomaaliya ka maqnaa marka saxan been oo filan marka balaayadan iyo waxan kale oo tuugada oo macaawinada ku hoosnool waxaas baa kala yaraan lahaa guriyahooda ku kala laaban lahayd ya marka taas waxa weeye waa akhbaar fiican bay Soomaaliya wata in wali ha fiicnaan lahayd in wax fiican in ay u soo duceysan ya bari jimcaha u soo duceeyay in Soomaaliya macaawinada laga joojiyo sidii noo kala yaraan tuugadan halkaas fadhida ya marka tuugadan waxa weeye Ilaahay ku kan baqayaan marka waxaas oo dhan waxa weeye dadka macaawinada lagu quudiyo waa kuwana marka haddana macaawinada kale hadda fiirstaan Soomaaliya waxa dawladdu ku sheegaa sida inta sheegayaan 2009 ilaa 2020 koodii waxay dhaheen macaawinooyinka Soomaaliya la siiyo asaas weeyay soo jeedaan marka macaawinada oo Soomaaliya la keeno si u badan tahay waa badar way badarkan kishish ku jira soo jeedaan marka kaas waxa inta tusaya nambaradan oo graafka kalarka badowga leh waa xaqiijinay soo jeedaan wixii kale oo macaawina ah waxa weeye waxa lagu sheegay kalarka cagaarka oo hoose soo jeedaan marka hadda ka soo qaad 2020 koodoo kale dawladda waxa soo gashay waxa la siiyay Soomaaliya 558 milyan oo dollar oo macaawino oo badar ah wixii kale oo macaawino kale ah waxa qiimadu waxa 684 marka macaawinada kale oo la sheego waxa weeye waa wixii hospitaal ah wixii oo iyo wax kale oo ay yaqaan laakiin Soomaaliya ma ka meel walaal milyan lagu isticmaalo hadii Ilaahay laga baqayo ya dawladda Mareykanka laftigeeda hadii loo fiiriyo waxaas ay arintaas ku bixiyaan waxay bixiyaan waa iska yartahay waa kan nambarada xaqiijinay soo jeedaan marka Soomaaliya hadda ka soo qaad 2024 ilaa 2020 Mareykanka
lixda sano gudaheeda 50 milyan oo dollar ee Soomaaliya ugu daaway waliba 50 milyan waa ku sii yartay soo jeed waa 40 milyan oo dollar camalka iska dhex yaa markaas waxa way haday macaawina joojiyaan xitaa marka waxa way waxa naga maqna yaa saambay noo faleen yaa waxaan ugu jidaan macaawinooyinkaas dawladahaas ee dhahan waa bixinaa waxa way dawladda toos looma siiyo marka dad kale baa loo dhiibaa soo jeed aan Soomaali ahayn baa u maamulo lahaa soo jeedaan marka waxa way dad waa ka mahmaahdi soo jeedaan nin baan goma soo jeed marka macaawinadaas oo dawladahan ay dhahayaan waa bixinaa Soomaaliya toos looma siiyo dad kale baa loo dhiibaa oo dadkaas kale bay dawladda markaas u tagtaa ay soo bariyaan yaa marka waa ka bixi rajinay soo jeedaan marka macaawinada Soomaaliya meeshii loo dhiibi lahaa yaa dad kale baa loogu dhiibaa oo u maamula hadda dad kale oo u maamula waxa kamid ah African Development Bank United Nationka iyo World Bank yaa marka macaawinadaas hadii lagu joojiyo xasaan bay noo fuleen Mareykanka xasaan bay noo fuleen marka Soomaaliya uu soo dhacay in si rasmi ah Soomaaliya lagu joojiyo macaawinada la siiyo marka balaayadan oo macaawinada ku nool iyo qurunkan iyo balaayadan oo inta fadhiyo waxaan dhan bana kala yaraan lahaa yaa dawladana noo fiicnaan lahayd yaa dadka soo qaad xisaab xirka ay sameeyaan waxaan dawladda ku sheegaa waxa weeye si intuu ugu jedaan lacagta ugu badan oo soo gasha waxa weeye waa macaawinadaas waxa la soo bariyay way soo jedaan marka shilin walba ee soo gala walkiiba 55 wax la soo bariyay way soo jedaan yaa marka waxa weeye waxaas waa dawladnimo oo baryotan ku dhisan way yaa marka baryotankaas wax la isku haleyn kara ma bari baa laga joojin karaa yaa sadan baa laga joojin karaa maanta laga joojin karaa wax la isku haleyn kara ma yaa laakiin dadkan oo inta fadhiya waxa weeye waxaas baryotankaas wax way kama xishoonayaan waxaas buu soo shaqo doonteen marka xaraan cunidaas yaa waxaas bay rabaanba oo soo shaqo doonteen yaa marka dawlad fiican hadii halkaas ka jiri lahayd oo dadkaas meesha fadhiya hawshooda qabsan lahayn macaawina waxa waa laga maarmi lahaa oo dawladdu run ah soo bixi lahayd yaa laakiinse dadkan inta fadhiya oo shaqada ka dhigtay in la baryootamo oo macaawina weligeed la qaato waxa weeye markii macaawinada waddanka laga joojiyo waxaan dhan waa kala yaacayaan tuugada dhan halka fadhida waa kala yaacayaan yaa marka waxa oo lacag Soomaaliya soo gashaa xagee ku baxdaa meel isweydi waa kana ra'iisul wasaariyaha asaga hore dhahay Soomaaliya adeeg ma bixiso yaa adeega dawladdu ay bixiso aad u liita oo de aad iska wada garanaysaan haday tahay caafimaad haday tahay amni haday tahay waxbarasho haday tahay wax oo dhan wixii dawladda ay bixin lahayd aad u liitaa wax yar bay dawladdu bixisaa oo aan waxba gaaraynin sidaa darteed waxaa laga yaabaa in ka badan 3 milyan oo arday Soomaaliyeed oo waxbarasho gaartay inay ciida miisanayaan marka adeeg hadaysan bixin lacagahan kale oo si inta ku jidaan oo dawladdu dhahayso oo soo gashaa yaa iyo waxaan macaawinaha oo inta wadamada kale dhahan Soomaaliya siinaa yaa warbar xaqiiqaysan yaa marka taas waxa weeye arin Soomaaliya ku baxda ma waa arin meel kale ku baxda way marka meeshaas waxa fiicnaan lahayd in lacagtaas dhan si rasmi ah lagu joojiyo xitaa admis ku dara budgetkeeda yaa marka saas ugu soo duceeyay Soomaaliya bari waa jimco way yaa marka macaawina iyo balaayo iyo sheedaamada ku nool iyo tuugada waxaas dhan qurunkaas iyo balaayaas daba socda si Ilaahay noo dhaafiyo yaa ugu soo duceeyay in macaawinada Soomaaliya si rasmi loo jiro yaa markaas baa dawlad run oo fiican ma soo bixi lahayd oo dad fiican oo markaas dawladdiina maamulay baa markaas heli lahayn